xildhibaan maxamuud dad badan baa aaminsan inaad riyoonaysaan in dalka doorasho qof iyo cod inay ka dhici karto xilligan oo la ogyahay in dawladdu waqtigeeda uu si gabaabsi u yahay oo ilaa iyo 4 bilood ama 5 bilood oo waqtiga guud ahaanba uga haray marka in xilligan aad tirahdaan doorasho qof iyo cod dawladda xaq qabato iyadoo waqtiga uu gabaabsi yahay soo marka ma xaqiiqoobaysa in riyadii aad ku jirtaan oo dadka idinku tilmaamayaan waxaan rabaa inaan u jilciyo dadka shacabka Soomaaliyeed waxaa la qabanayaa doorasho qof iyo cod macnaheedu ma aha dhammaan dadka oo dhan inay codeynayaan dawlado badan oo burburay ayaa jira oo loo qabtay doorashooyin qof iyo cod iyagoo qoryihiin la haysto oo qabaa'il leeyahay oo la isdilayo waliba innagana kuwaas oo kale ayaa laynoo qaban karaa annaga waxa weeye ujeedkaygu waxa uu yahay in hore loo socdo 20 sano ayaan waxaan taaganahay mar oday qorayo mar qabqable oo maganaysan nin kuwa dhowrka loo orjay wax ka qorayeen mar lagu soo celiyay oday kaliya mar doorasho dadban loo jeediyay waxaan leenahay war wadada tooska ah la maro qardajeexa la iska daayo hal aado qof iyo cod waqtiga haray waa lagu qaban karaa geesinimo ay u baahan tahay in fooda la geliyo loo baahan yahay doorasho qof iyo cod lagu dhiirado haddii hadda 6 bilood ama 5 bilood ay raacdo xilligii oo doorasho qof iyo cod lagu helayo 6 bilood oo faa'iido lagu helo dalkii laga kiciyay meeshu joogay taa un way tanoo muuqata waan ognahay in madaxda dawladdu ay aad iyo aad arrinta u raadinayaan garabkoodaan ku taaganahay waxaan rabnaa inaan dhahno hore u socda Soomaali oo inteedii badnayd ayaa doonaysa qof yar waa laga yaabaa iyo dad shakhsiyaad ah inay doorashada bandaneynayaan markaad leedahay doorasho qof iyo cod waa la qaban karaa muddada hadda dawladdu u hartay haddii la iskaasho markaad leedahay dadka u sharax sidee doorasho qof iyo cod iyadoo 5 bilood wax ka yar ay dawladdu u harsantaa aan ognahay oo madaxweynaha ugu eg tahay 8 February baarlamaankana la ogyahay in iyaguna mar dhow ay xilkooda u dhamaan doono sidee doorasho qof iyo cod lagu qaban karaa bal dadku sharax waa sharaxayaayo saacadda naloo hayo ee sidaan loo ku dhiganayo ee leeyahay wax idin hayo daqiiqado saacado bilo horta waxaan garan lahay waxa anaga hadda dawladda oo dadaalaysa oo ku socoto qof iyo cod waxa saacadda loogu hayo siyaasiyiinta saacadda noo eegaya waxaan xusuusinayaa 3 dawladood oo soo bedelay tan iyo carta mid saacad loo eegay ma jirin marka dadka degdegsan ee raba doorasho iyo qof iyo cod intay madaxweyne ku helaan ama xildhibaan ku helaan waxaan leenahay walaalayaal loo laaban maayo doorasho dadban dalkana tahluka la gelin maayo waad ogtihiin dadkii ergada ahay oo codeeyay kala bar waa la laayay odayaashii dhaqanka qaybna waa la laayay qaybna shabaab baa u yeeray dadkii ergadii intii ka soo hartay shabaab bay iska xaadiriyeen waxa la rabaa waxaynu biirinaynaa oo badinaynaa maalinba intaasoo kun oo erge ah ay doorasho sameeyaan inay shabaab ku biiraan oo lafooda ku badbaadiyaan yaa og waxa ka soo baxaya doorasho dadban marka anagu khataro badan oo noo muuqda ayaanu dalka rabnaa inaanu ka badbaadino ma aha kuraas waxaan danaynaynaa waaya kulankiinii aad yeelateen muqdisho aad ku yeelateen oo aad ii sheegtay 58 xildhibaan ay ka qayb galeen oo aad ku codsanaysaan in doorasho qof iyo cod dalka lagu qabto waxaa leeyahay waxa ku hoos duugnaa muddo kororsi inaad doonaysaan oo muddo 2 sano in baarlamaankan loogu daro dawladdana loogu daro si aad marmarsi uga dhigataan in doorasho qof iyo cod dalka ay uga dhacdo muddadaas 2 sano kadib arrintaasi marka miyaysan muuqan marka la eego hadalkaaga xildhibaan Rashaad war jira abaa kaaro iman haddii anagu aanu u baahanahay muddo kororsi itaanu fariisano oo aanu mooshin geyno ama aanu ka hadalno guddigii doorashooyinku arintay soo gudbiyeen ayaanu si tartiiba dubaha ku dhufsan lahayn oranayn 2 sano ayaanu qaadan ma wadno waxaanu wadno ayaanu sheegayno waa waxa cad ee ah in wadada tooska la aado ee aan qalqalooc la aadin ama bulshada u hoosgelisaan sidii ra'iisul wasaaraha u rideen oo kale iyadoo aan la ogeyn mooshin ra'iisul wasaaraha laga wada ayaa ajandihii baarlamaanka maalin intii la bedelay ra'iisul wasaare khayr la riday ama iyadoo ajanda kala jira ay dhacdaa in aad soo gudbisaan muddo kororsi kadibna aad ku darsataan sidii hore u dhacday ra'iisul wasaarihii iyo xukuumaddiisii laga laabtay codka qodobka ugu horeeya ee ugu muhiimsan ee loogala laabtay codka wuxuu ahaa waxaa la dareemay inay doorasho dadban wadaan xukuumaddu inay doorasho dadban wado caradii ka dhalatay doorasho dadban ee laga qabay ayaa qaadatay seeftaasaa qaadatay xukuumaddii inta hadda talada hadda qaban doontana sidaas oo kale baa loo daba joogayaa
doorasho qof iyo cod ah baa laga rabaa waa sharci waa la sharciyeeyey waa wax dalku leeyahay doorasho qof iyo cod way xildhibaan arrinta ra'iisul wasaaraha lagu leeyahay haddaan wax ka weydiiyo maxaa loogu dari waayey fariimihii habeenka la idiin soo dirayay ajandaha la xiriiray baarlamaanka maalinkaas kuma jirin cod u qaadista kalsoonida xukuumadda maxaa markii subaxii la gaaray oo baarlamaanka ay kulmeen ay u dhalatay arrintaas haddees waxba ku jirin arrintaa jawaabteedu waa fududahay waad og tahay xukuumaddan waxaa ku jiray tiro 60 ku dhow oo xildhibaan ah oo wasiirana ah oo markay khaldamaanna wasiir ahaan iyagoo khaldamay iyagoo khaldan haddana oo xildhibaana bay ku difaacayeen khaladkoodii xukuumadda markii aanu damcan inaanu ka hadalno arrinta doorashooyinka iyo sababta xukuumadda gelisay inay qof iyo cod u saciyaan u ordaan waad arkaysay wixii ka dhacay wasiiradii baa istaagay ilaa guddoomiyihii baarlamaanka la dakhli gaaray arrintaasi waxay keentay in guddoomiyuhuna ku caroodo xildhibaanaduna ay u caddaato in doorasho dadban ay xukuumaddu waday taasina waxa weeye qofku hadduu dembi galo oo hadda haddii xildhibaanka dembi lagu qabto la sugi maayo in la geeyo lala tago oo la yidhaahdo xasaanadda laga qaado fala garansa cad weeye xukuumaddu waxay gashay dembi cad oo ay diidan tahay doorashadii qof iyo cod xukuumadda maxaa fursad loo siin waayo xildhibaan oo ra'iisul wasaaraha loogu yeeri waayo baarlamaanka ugu yeeri waayo arrintaas waxa looga weydiin waayo arrinta in doorasho dadban iyaga ay wadaan maadaama ra'iisul wasaaraha meel uu ku caddeeyay aysan jirin in uu diyaar u yahay in dalka uu ka qabto doorasho dadban maadaama uusan jirin oo madaxweynaha isaga ay uu sheegay inay isku mowqif yihiin oo loo baahan yahay doorashada waqtigeeda inay ku dhacdo maxaa fursad loo siin waayo ra'iisul wasaaraha oo baarlamaanka intuu hor yimaado su-aalo loogu weydiin waayo arrintan intiina ku degdegin oo xilka ka tuuray waxa sababay way ahayd in la weydiiyo in laga hadlaa la rabay inuu isku difaaco meesha waa ahayd ra'iisul wasaaruhu laakiin wasiiradiisii markii ay mobayladii tuurtuureen oo qolkii hagidda ay damceen inay jebiyaan oo magarafoonadii ay raficeen oo baarlamaankiiba ay ka dhigeen meel iyagu xoog ay ku qabsan karaan iyagoo siraa taa ayaa keentay waa tan aan ku leeyahay falgaran sacad oo dembiyo ay galeen weeye waana laga jaaseeyey waxayna digniin u tahay xukuumadda dambe digniin u tahay